bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal meel walba waa joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu idiin soo gaaraya halkaad inaga daawanaysaan waa bartaaynu youtube-ka ku leenahay runsheeg saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan warbixin gaar ah inuu ku eegi doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo helay xildhibaano cusub iyo rajada dib u soo laabashadiisa oo sare u kacday saaxiibayaal warbixintaas oo faahfaahsan intaynu guda gelin waxaad ka codsanaynaa haddii aad nagu cusub tihiin inaad subscribe noo saarnaa channelka haddii aad horey inoola joogto inaad like nagu dhiirigelisaan saaxiibayaal sida hordhaca warkayga baad ku daawateen haddaynu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa helay xildhibaano cusub sidoo kale rajadiisa dib u soo laabashada ayaa waxay marba ka dambaysa sar u sii kacaysa xildhibaano cusub ayaa ku soo biiriyay xisbiga nabad iyo nolol kuwaas oo ka kala imaanaya musharaxiinta mucaaradka sidoo kale qaarkii sida aadka uga soo horjeeday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa lagu arkayaa villa Soomaaliya iyagoo si gooni ah ula kulmaya kooxda campaign-ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo saaxiibayaal diiwaangelinta musharaxiinta oo gabagabeeyay 3 maalin oo xiriir ah oo ay socotay waxaana shahaadada musharaxnimo qaatay 39 musharax doorashada Soomaaliya hadda waxa madaxweynaha ku tartami doona 39 kaasi musharax walow markii hore la filayay in ay ka badan karaan balse shuruudaha lagu xiray musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo oo aad u adkaaday ayaa keentay inay ku soo koomaan 39 saaxiibayaal xitaa waxa la filayay 39 kani inaysan ka gudbi karin musharaxnimada balse oo la filayay inay 20 oo kaliya ku koobnaan doonaan balse daqiiqadii ugu dambeeyay ayaa shakhsiyaad badan waxay isu soo taageen xilka madaxtinimo ee Soomaaliya qaarkood siyaasadda Soomaaliya waa ku cusub yihiin halka qaar kale ay yihiin musharaxiin horey ugu soo noqday inay xilkaani u tartamaan sidoo kale madaxweynayaal hore ayaa ku jira wasiirro ayaa kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo saaxiibayaal waxaa xusid mudan in nimankii ceel waaq lagu soo doortay ay hadda banaanka ka istaageen Siciidan iyo sidoo kale Axmed Madoobe doorashada Soomaaliya waxay maraysaa heer gabagaba ah waliba xasaasi ah waana waqtiyada ugu badan ay isbedelaan xildhibaanada waxaa sidoo kale maanta qaatay shahaadada musharaxnimo Siciid Cabdullaahi Deni oo cabsi badan ka qabay inuu isu soo taago xilka madaxtinimo ama uu shahaado qaato maadaama xildhibaanadii uu ku xisaabtamayay xitaa uusan haysan 20 taasoo muujinaysa kalsooni darrada haysata Siciid Cabdullaahi Deni iyo saaxiibadiisa kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo saacadda ka dambaysa waxaa sare u sii kacaya rajadiisa dib u soo laabashada waxa uu helayaa xildhibaano cusub waxaa saaxiibayaal xusid mudan in ay mucaarad ku cabsi badan ka qabaan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo xilkan markii labaad oo xiriir raba inuu ku guuleysto ay ka cabsi qabaan inuu ku soo baxo codad tiro badan wareega koowaad saaxiibayaal waxaa xusid mudan in qaar kamid ah kooxdiisa ololaha ay hadda diyaar u yihiin in ay u sii dabaaldegaan soo laabashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maadaama ay arkaan saansaan ah inuu soo laabanayo saacadaha soo socda waxaa la sii deyn doonaa kursigii Fahad Yaasiin sidoo kale culayska ayaa ku sii kordhaya musharaxiinta mucaaradka madaxweyne farmaajo waxa uu dhaqaale badan ka helayaa wadamada Qatar iyo sidoo kale Turkiga waxa uu hadda diyaar u yahay in uu u tartamo xilkaasi isagoo ay kalsooni badan ka muuqato waxa isbedelay jawiga siyaasadeed maadaama mucaaradku markii hore ay ku taamayeen inuu isaga haro tartanka madaxweynaha jamhuuriyadda maadaama ay cabsi badan ka qabaan inuu wareega koowaad ku soo baxo saaxiibayaal waxaa taariikh noqon doonta in madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wareega horeba uu ku qaato kursiga ugu sareeya dalka laga maamulo villa Soomaaliya wadamada Kenya iyo Imaaraadka waxay cabsi badan ka qabaan soo laabashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo saaxiibayaal hadal jeedinta musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ayaa waxa ay ka bilaamaysaa 11 iyo sidoo kale 12 bisha aynu ku guda jirnay ee May 2022 waxaa qof walbaba uu halkaasi ku soo bandhigi doonaa 15 daqiiqo gudahood
waxqabadka 4 sano ee soo socota uu ku hogaaminayo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed balse shacabweynaha Soomaaliyeed ayaa kaliya fiirsanaya 15 daqiiqo uga qiimaha badan wax walba oo hadal jeedinta qaadan doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaano fara badan ayaa ku soo biiraya dhinaca nabad iyo nolol kuwaas oo arka natiijo hordhaca oo uu sii haysto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bulshada Soomaaliyeed ayaa mar walba la garab taagan ducada waxa uu diyaar u yahay in uu Rabbi ku guuleeyo xilkaasi sidoo kalena oo isbedelkii socday soona bilowday 8 February 2017 uu bartiisii ka sii wado waxaa gabagaba ku dhow doorashada madaxweynaha Soomaaliya maalinta Axadda teendhada afisyoone waxay marti gelin doontaa rag siyaasad ahaan muddo iska soo horjeeday sidoo kalena aan isjeclaysan intii muddada ahayd ee xukunka la joogay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa soo hor istaagi doona baarlamaanka isagoo ka codsan doona in ay codka ku taageeraan si uu 4 sano ee kale dalka uu sii hogaamiyo si isbedel ka socda halkiisii looga sii wado saaxiibayaal madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya rajadiisa soo laabashada waa 100% marka loo fiirsho musharaxiinta kale ee la tartamaya waxaa la rajeynayaa in madaxweyne Farmaajo haddii uusan wareega koowaadba ku guuleysan wareega labaad uu ku yimaado codad aad u sareeya taasoo baqdin gelin doonta midowga musharaxiinta mucaaradka oo muddo geesaha ku dhaganaa madaxweynaha qaranka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amniga guud ee magaalada Muqdisho ayaa loo adkeeyay sidoo kale waxaa si gaar ah loo adkeeyay amniga teendhada afisyoone ee magaalada Muqdisho bulshada Soomaaliyeed ayaa u diyaarsan diyaar garowga farxadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda saansaanteedu ay muuqatay inuu mar kale sii hogaamin doono dalkayaga gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ayaa kormeer degdeg ah iyo indheyn ku tagay teendhada afisyoone halkaas oo maalmaha inagu soo fooda leh marti gelin doonta doorashada madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale hadal jeedinta ayaa isla halkaasi ka dhici doonta waana maalmo mashquul badan iyadoo amniga guud ee dalka si guud loo adkeeyay sidoo kale waxaa si gaar ah loo adkeeyay amniga garoonka diyaaradaha Dancadda sidoo kale magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka teendhada afisyoone waxay marti gelin doontaa shakhsiyaad badan kuwaas oo raba in ay dalka sii hogaamiyaan 4 sano ee soo socota saaxiibayaal sidaan xogta ku helayno xildhibaanada ku biiray dhinaca nabad iyo nolol ayaa waxay ka kala yimaadeen Puntland iyo sidoo kale Jubbaland kuwaas oo aan siciidani jeclaysan hab maamulkiisa maadaama maamul goboleedka Puntland muddadii uu hogaaminayay hagardaamo badan oo ka geystay sidoo kale sidaan horey idinla wadaagnay dhaawacyada siyaasadeed ee Saciid Cabdullaahi Deni ku yaala waxay u horseedi karaan in wareega koowaad uusan ka soo gudbin wareega koowaad waa halka lagu kala haro waana meesha ugu adag ee musharax walba uu doonayo inuu ka gudbo ma caddayn Saciid Deni uu halkaasi ka gudbi karo maadaama ay tahay meel qof kasta uusan ka gudbi karin Saciid Deni saaxiibadiisii ugu dhawaa ayaa hadda magaalada Muqdisho waxay ku kala biirayaan xisbiyada kale sidoo kale waxaa badi ay aadeen dhinaca nabad iyo nolol halkaas oo ay ka arkaan danahooda siyaasiga waag saaxiibayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan like na inugu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle